Norway iyo caalamka intiisa kale afarta cirif ee caalamka ay ku nool yihiin Soomaali caawa qaybta hawada naga dhigeysanaysa barnaamijka arrimaha bulshada oo ugu talagalnay inaan ku soo qaadano qayb ku salaysnayd jabhadda oo NLF taasoo marti sharaf madax sare oo ka socotay ay dalka Norway boqosho ay ku joogeen ayaa nasiib wanaag daqiiqadii ugu dambeeyay aan waqti ku helnay iyagoo runtii ku mashquulsanaa kulan ay la kulmayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway balse dhageystayaal waxaan idin haynaa nasiib wanaag madaxdii oo noo timiyo markaa nala joogto ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka oo NLF Ogaden National Liberation Front maxamed ismaaciil cumar iyo gudoomiyaha hoggaanka arrimaha bulshada maxamed cabdi yaasiin oo fadhiya caawa santarka Samadoon Radio nasiib wanaag kusoo dhawaada martisharteeda qaaliga ahay Samadoon Radio marka hore ودونا حسن هذه أدبا ما تنتهي من قابلات من قابشين في أنه يعني أنه يكون في النوع حالة شعب كرير بعدين يأرمها برشدي يسأل الله ده يدو وحي كسب سيه. مركب وهو رئيس قدومية كحيانك جبهة أو NLF ayaa ku sugan sida aan sheegnay dalka Norway waana qoftan iga soo horjeeday marka lagu magacaabo maxamed cabdi naga hadlo maxamed ismaaciil cumar su'aashiisa ugu horeysay aan ku weydiin lahaa mudane waxa ay tahay imaashada dalka Norway iyo caasimadda Oslo oo si kooban waxay ku salaysnayd bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan waxaanu wareegaynay aniga iyo waftigii ila socday hoggaanka arrimaha abaabulka iyo bulshada mudane maxamed cabdi yaasiin dalka Yurub waxaanu soo marnay 5 dal oo kale to haddana waxaa noo haray dhowr dal oo kale inaanu marno aanu rabnay inaanu la kulanno dawladaha aanu soo marnay sida dalka Germany Switzerland Finland dalka Sweden marka iyo Norway inaanu dawladahaas mas'uuliyintooda hoggaamada iyo cidii aan ka arki karayno xisaabta siyaasiga ah inaanu la kulanno isla markaa inaanu jaaliyadaha shacabka Soomaalida ogaadaya ee dalalka ku nool inaanu iyagana la kulanno aanu isfikrad weydaarsano isla markaana la socotiin xaaladda dalka ogaadaya iyo shacabka ogaadaya wuxuu ku sugan yahay mudane waxa aan ku weydiin lahaa su'aasheeda kale ay tahay ururkan oo NLF waxa uu ka howlgalaa xoogiisa dalka Ethiopia dagaal culus baad waxaad kula jirtaan dawladda Ethiopia in badan marka laga soo bilaabo 8 xaalka ururku sida uu ku sugan yahay maanta runtii ururka NLF kama howlgalo dalka Ethiopia waxa weeyaan dalka ogaadaya ayuu ka howlgalaa oo aan ahayn qayb Ethiopia ka tirsan Ethiopia way gumaysataa dalkaas wuxuu soo maray ururkan ilaa 1984 waqtigii 1984 uu dagaalka hadda ay NLF hogaaminayso uu soo bilowday walow halganka shacabkaas uu sii horeeyay ilaa qarnigii 16aad hase ahaatee wuxuu dagaalka hubaysan ee gacan ka hadalka bilaabay 94 intii kale oo dhan abaabul iyo istiyaarin buu ku jiray wuxuu soo maray marxalado aad u kala gedisan hadda waa wuxuu dalka ogaaday oo dhan ka dagaalamayo kana gacan sareeyo cadawga gumaysatada Ethiopia wuxuu ka dagaalamayaa yana ilaa ma aragtay galbeedka shishe ee xataa ma aragtay qayb ka tirsan dalalka aan deriska nahay iyo ururada aan deriska nahay Oromada iyo sidoo kale ay iska shadaan waxaanu ognahay oo xaqiiqdu ay tahay ururkan soo dagaalamay cadawga iyo gumaysta haysta inta sana uu kusoo dagaalamayaan wada ognahay xaqiiqdu sida ay tahay ururkan maanta dadku badanaa waxay yiraahdaan waa kala jaban yahay waxaanu maqlay gudoomiye ku-xigeen in maamul goboleedka gelinka shanaad ay loo magacaabay madaxweyne taasna ay warbixin badan ka muujiso kala daadnaan iyo kala dhac ka dhex yimaada ururkan ogaadaya iyo howlgalkiisa taas wuxuu noogu sheegi kartaa taasi waa dacaayadda beenta ee cadawga uu fidinayo waxa weeyaan qariska tuurnimadiisa iyo in uu dad aan awal horeba dadka Soomaalida ogaadaya aan u tirsanayn oo qaarkood ay beerta ku jireen ama dhul jiifiye iska ahaayeen qaarkoodna ay ahaayeen dabaqoodhigii isaga wardoonka u ahaayay dibadaha u soo diray shaarka oo NLF intuu u geliyay inuu yiri waa garab ka tirsan oo NLF taasoo uu rabay inuu raayada caalamka iyo sharciga dadka shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba uu ku khaldo laakiin runtii waxaan u aragnaa
dheriga maxaa karka ka keenay yani kuleylka inuu meel qabsada uu leeyahay waana guuldarrada ka haysata dibad iyo gudaba halka muxuu ahaa horumarka ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya ka keentay markaan idhaahdo cabdi maxamed cumar yaa taqaanaa cabdi maxamed cumar waa midka dabadhilifka xun ee Ethiopia u shaqeeya ee aan damiirka lahayn ayaa cabdi maxamed cumar la yiraahdaa annagu laakiin waxaan ahaa kaabaha dabaqoodiga maamulku sheega jigjiga ee Ethiopia halka dhigatay taasoo jirto aan ognahay waxa jirta qurbaha jabhadan hawlgalkeeda dhaqaale markii la sheegay iyo taageeradeeda ugu badan qurbuhu ka yimaada qurbaha marka la yiraahdo xaqiiqdu siday tahay oo aanay adigu aan ognahay kala jab waa jira ummadii qaar raacday dabaqoodiga iyo dadka adigu sheegaysa ayaa jira taas maxaad kala tahay markasta oo dagaal gobonimo doono xaq lagu jiro ummad kasta waa laga helayaa canaasir ka soo horjeeda halganka oo cadawgu ama iibsaday ama aan iyagu u dhoodo damiir balahayn oo halganka ka soo horjeeda sida inahaas oo kale meel walba way jiraan sida ay caalamkaba tahay laakiin shacabka reer ogaadeeya uu midaysan yahay dhammaantiina يعني هدي أنا هذا بقول كيف سجالي سجاشن وحو تاجر سيء هالجن كشعب كرير وقادية ثانا وحامر خاتك إن عن وقت جا مرحلة اللوجرو إجاز كأفريقيا عالميا إن جبهة ودني حرية وقادية أي نقولها أي منطقة كنا لون يسجعدين هذا شعب كتاجر سنين مدة كلاتو معها إنه يقربها وكي مادو نقالها وين يتاجر وين وهالجن كصعبه وحكي ماذا جدها والله فدورت لكن قربها جاليدها جوجو أو كنتي هذا فربضن حقنا له وتغير ريال وحكت تغيران مورالي معنويا يو عالم كله سعوديين هي هل إنك شعب كرير وهذه هل كل هذا وحنا مقلنا هجامية كل اسمه عابي إسلا جبهة هجامية ما تجرى وعملك وانا ودبنا هجامية هذا قدومية أن أدميرال محمد عمر عثمان waxaa kaloo la og yahay ururkan oo NLF heshiiskii la dhigay 8 oo kale inuu ahaa waxa lagu heshiiyay sharci ahaan la qornay in 4 sano shir la qabto lagu dooranayo gudoomiye cusub waxaan wada ognahay ma aysan dhicin kadib 1998 taas wuxuu nagu sheegi kartaa waxa weeyaan waa run waxa weeyaan markii dastuurka waxa noogu yaalay oo shirweynihii سجاشني وتضبادي سجاشني سيدي هرانتي دي لقفتي وسي أنسحيي أفرتي سنة بإن مر لقفته لكن قرأها الدحاء أيا لبدي كوني لبدي بقول فريستي وحيد هذين أبو بدنان ويران أفرتي سنة بإن مر لقفته أين ظروف تان حكومة إسا مركا ظروف تجيس كأفريقيا يعني وحويان مركي سوروبي كريس أو إنه أسامحه أي شروينا هلا قرنا يا إلا حدنا ظروف تمين سامحين وحاكم مهم صناعي إن دجال كالحوتية هوشنا عين يستاجين شرويني سيدا سيلو يري مركا قدوميها جاكدا هيستا أمريكا dadka qaarkood waxay yiraahdaan ma aanu aqoonsanin maadaama inta muddo oo haystay doorasho shacabna uu soo dhigay taas wuxuu nagu sheegay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya gudoomiyaha uu yahay way aqoonsan tahay wayna og yihiin duruufta keentay isagaana gudoomiye waa shacabka reer ogaadeeya ee taageersan halgankana taasay ay ku taageersan yihiin og yihiin kuwa sidaa oranaya hadday yiraahdaan iyo haddii kale wax muraad oo ay ka leedahay jabhaddu ma laha waa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya oo shacabka halganka shacabka geesigu u dagaalamayo hogaaminaysa ayuu gudoomiye u yahay nabad markaan idhaahdo nabad dagaal baad ku jirteen in muddo ah jabhadan waa la ogyahay adduunka caan weeye in muddo ah dhimasho leh dhibaato leh dhiig baxay leh dhaqaale leh nooc kasta leh nabad marka la yiraahdo ma isku daysan inaad nabad la qaadataan dalkan aad dilaysaan nabad waxa weeyaan nin la gumaysta ugu baahan anagu nabadda markaan weynay oo ayna nabad aanan annaga mooye aanan anagu haysanin dadkii kalena haysan nabad ma aha nin la gumaystaana nabad kuma jiro yani nin markaan ka hadlayo qof dad la gumaystaan nabad kuma jiro marka waxaan u dagaalamayno waa xorriyad iyo nabad waarta inaan ku noolaano waayahay bal sidoo kale waqtiga aad noogu yar awgii waxaa martida nala joogta kamid ah nala jooga gudoomiyaha hoggaanka abaabulka arrimaha bulshada ee ururka ONLF
ayaa isla marti ku ah soo dhawow sidoo kale maxamed cabdi yaasiin ururkan iyo howlgalkiisa xaruntiina waa xagee baad ka howlgashaan waxqabadkiisuna sida uu yahay جماعة wadaniga xoreynta ogaadaya howlgalkeeda iyo xarunteeda waxa weeye waa gudaha ogaadaya halkaasaana saldhiggeeda rasmiga yahay inta kaloo dhanna waa howlgal uma loo aadaa marka xaruntu waa gudaha ogaadaya waana xarun guurguurta maadaama dagaal lagu jiro oo lama odhan karo hadda waa goob beel hebla waase gudaha ogaadaya jafad dagaal ku jirto xornimo doona waxaa lagu gortaa abaabulka iyo la xiriirka qurbaha ee dadka jooga badanaa ay hawsha ay ku socoto sidaan ognahay shaqooyinkaaga ama shaqada aad qabato ma khusaysa dadka qurbaha jooga oo hawlahaas ma abaabusha sida aad u sheegto horta abaabulka iyo arrimaha bulshada gudaha iyo dibadda meel walba waa qaabilsan yahay dibadda haddaan marka kaaga soo qaado aad ba abaabulka u jira waxaana kuu sheegayaa dawladda ingiriiska waxaa la odhan jiray caalanka Britania qoraxdu kama dhacdo maanta caalanka ONS bay qoraxdu ka dhexo adduunka qaaradaheed oo dhan way joogtaa in ka badan 68 jaaliyadood ayaa dibadda ka abuuray oo ogaanaya dibaddeeda oo kaliya intaasina qaaradaha adduunka ku kala yaalin waxaa xataa suuragal ah daqiiqad ayna jaaliyad ogaadayeen ayna abaabul iyo hawlgal ku jirin inayna 24 saac soo marin way 28 bishan oo maalintii shalay ahayd shir baad ku qabateen caasimada dalka Norway hadallada aad khudbada ahayd ka jeedisay waxaa kamid ah in dadka Soomaalida ay aad u taageeraan jabhadan taasoo keenaysa baa tiri in Soomaalidu hadii la taageero jabhadan ay noqonayso mid iyadana sircado waxtar u leedahay hadalkaasi dib ma ugu noqon kartaa hadalkaasi waa xaqiiqo weeye waxaan leeyahay horta Soomaalida marka horeysa maamaha Soomaaliyeed baa jirta waxay tiraahdaa doqon qofacday meel laga raacay samooga horta waxaan ii sheegayaa oo aan qarsoon oo cid walba ogtahay qarankii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed maanta meesha ay taalo ay isweydiinay maxaa dhigay inta dhigtay waa cadawgeedii soo jireenka hay Ethiopia kiibaana maanta meel walba aad ogtiin inuu laalaan iyo wax aan la garanaynin oo kale uu ku wada maamulo waad ogtiin mas'uul aan maanta Ethiopia laga soo sameeynin inuu Soomaali maanta soo horistaay karin marka la saadaalinayo ninka mas'uulka ee Soomaaliya inuu mataqaana guuleysanayo waxa hadda la yiraahdo Ethiopia sidee u taageersan marka nin la yiri see cadawgiisi u taageersan yahay sidee uu guul ku gaari karayaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa in qadiyadoodu tahay meesha laga dilayana ay tahay Addis Ababa ay tahay meesha ogaaday lagu gumaysto cadawgood inay meel la soo jeedsadaan way FM 99.3 wada FM aad naga xiriirtaan habeen walba cada Samadoon radio ay aad naga dhageysanaysaan khadka telefoonku waa uu noo suurtagal ilaahay caawa waqtigu aad noogu yar ayaan naga soo wici karin khadka telefoonka marka emailka samadoon@albakrol.com hadii aad noogu soo diraysid su'aalaha kooban aanu ka jawaabi karno waa noo soo qori kartaa khadka telefoonka aad baan ugu xunahay inaan naga soo gali karno caawa su'aalaha laga weydiin karin anagoo isku dayna markaa inaan waqti kale aanu helno la kulano odayaashan day suurta gasho aad weydiisaan waxa aad idinku rabtaan balse caawa aniga ayaa isku dayay su'aalaha qaar kamid ah inaan weydiiyo Soomaaliya aan ugu noqdo jabhadan sida la ogyahay dalka Soomaaliya burburkiisa dib weyn baa ka soo gaaray gudoomiye ku xigeen jabhada ONLF su'aashiidu sidan ay u dhigmaysaa haddii dalka Soomaaliya uu ahaan lahaa dal jiro xukun loo helo dibna u dhismo si dhaqso badan ma suurto geli lahayd caawinta iyo isdaba joogga iyo daba socoshada iyo ogaanshaha iyo cabsi in laga qabo marka aad ku heshaan guul ka dhaqso badan maanta tan aad joogtaan runtii taas waa xaqiiqo jirta waxa weeyaan Ethiopia waxyaabaha ay u sii dhaga adeegayso dhibaato kasta oo ka soo gaadhay dagaalka iyo darbaaxooyinka gobonnimo doonka jabhada wadaniga xoreynta ogaadaya waxa ugu wacan waxay og tahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyadoo oo aan taageeraba laga helin ayay Soomaali jiritaankeeda kaliya tahay gargaar noqon lahaa oo Ethiopia candhuufteeda liqi lahayd haddana waxa weeyaan Ethiopia waa ka adkaanay laakiin waxa weeyaan Soomaaliya ku gudban markay Soomaaliya qayb iyo xukun oo maamulo iska warlooda oo iyada ku wada xidhan ay ka samaysay ayay ku sii cimri dheeraynaysaa taas oo cimri dheeraynaysaa iyaduna waxaad moodaa inay quusatay karinal adahay oo tabar u laadahay hatta Soomaaliya waxay kala qaybisaba iyaduna maalin dhow waxa imanaysa Soomaali oo qarannimadeedii soo noqotay halganka shacabka roogaaday ugu jiro xorriyadiisa uu guuleysanayo
waxaan isla leenahay bal dadna dhegeysta jira ay gudoomiye ku xigeen aanu challenge siino marka hal iyo laba qof oo marka su'aal aanu ka qaadno khadka telefoonka waxaan filayaa qof Soomaali inuu ku jiro marka su'aal ama fikrad uu qabo habeen wanaagsan qofka aad tahay iyo fikradda ama su'aasha aad qabto وعليكم السلام سلام الله وي waxaan weydiinayaa madaxda sharafta leh ee oodan ugu soo booqato marka ugu horreysay waa mahadsantihiin marka labaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa mar labaad inaad been ka ogyihiin shacabka u sheegaysa inaad maanta caawa si life uga daba tagteen waxaan leeyahay kale oo ku baraarujinaya inaysan dadaalka ay u hayaan ummadda aysan ka seexan haarig iyo habeen oo u taagnaadaan qadiyadda ogaadeen iyo difaaca sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ee ogaadeen waya way aad baad u mahadsantahay iyaguna kulli waxay ku leeyihiin waad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa mid kamid ah dhegeystayaasha iyo goor soo waca waxa aanu filaynaa waqtigan aad ugu yahay bal eegno qofka kale aanu siino chance marka habeen wanaagsan Samadoon radio ku soo dhow halo السلام عليكم soo dhow Solo.